labadaanin waxay qayaaneen ninkan dukaanka gadaya asigana wuxuu ku hadlayaa taleefon wuxuuna u cabirayaa sokor. nimankaana waxay wataan wiil baqsan ayay wataan oo waxay kusoo dhexdhideen bac sokortii ayuu ninkan miisaanka u bagaya. ninkan baasha ayuu dhiga ka tagay meesha. ninkan kale ayuu leeyahay maad isiis walaalo maanta sokor ayaan kaa sigay waan ku sii sokorta maxaa rabta ayuu kuli aaway sokorta daas ninkan meesha ayuu fiirinaya wuxuu leeyahay sokorta haddaad cabirinaysa xagee baad geysay ayuu leeyahay war aniga sokor ima siin sokorta isii. ninkan xili walaalo ciyaarta igada waa ku miisaama sokorta lacagteeda isii. fadlan ah hilmaama inaad furato calaamada gambaleelka si aad ula socoto muuqaal baan soo gelno muuqaalkan la agara sheer garay oo asxaabta la wadaag intaas waxay noo tahay dilgelin. haddii sokolaad ii miisanta aniga weli meesha ayaan taagan xagee baan geeyey wuxuu ku leeyahay waan ku baryaa mar dambe dukaankayga iyo agaarihiis dambeeyaan kugu arkan waan ku aqaana tuug ayaa tahay haddana lacagtii waa inaad dhisaysaa haddaadna siin iga hortag oo lacag waxaan kusaa ma jirta ayuu leeyahay. ninkan asigoo meesha ka tagaro gabadhan ayaa imaanayso waxay ku leedahay nimankan walaal maalubsaa ayay ku qayaani jireen wiilkan baqsan ayay wateen maalub sokortaa sidan ay kaaga qaadi jireen. ninkan inuu yaabo madaxa xoqonaya waxay ku leedahay nimankan si xun ay maanta kusoo qabtay mar dambe ha u ogolaan in dukaankaada ay wax ka qaataan. ninkan wuxuu leeyahay shaqo fiican ayaad qabatay gabadha ay u mahad celinaya